dad xoolo dhaqata ayaa soo degaya hareeraha magaalada Tanlaas Caanood ee xarunta gobolka Sool kuwaasoo gudaha magaalada Nacfi kala soo raadshay xoolahoodii wixii ugu hadhay markay xaalufeen deegaanadii miyiga ee xoolahaasi daaqi jireen. Dadkan xoolo dhaqatada ah ayaa waxay cunaan gudaha magaalada Laas Caanood xoolaha uga keena siiba galeyda oo ah waxa ugu badan ee iminka xoolaha hadhay la siiyo. Xoolaha ayaan iib lahayn waxayna geela badi dadkaasi sheegeen in ay dad eheladooda oo jooga gudaha magaalada Laas Caanood ku caawiyaan galey. Geela daaqa lagala soo raashay gudaha magaalada Laas Caanood ayaa waxaa ka mid ah dadka deegaankan keenay Axmed Faysal Cabdi Warsame oo ah 16 sano jir waxaana uu sheegay in 34 geela oo uga hadhay 77 geela oo aabihii lahaa uu ka soo kaxeeyay magaalada Sarmaayo oo Laas Caanood bari ka xigta masaafo dhan 160 kiiloomitir. geel marka hore waxa 77 marka abaar baa dhacday imisa geeli soo hadhay waxa soo hadhay 9 waan gartay halkan geeli hadda daaqaya geedkan hoos ku hadhka la yiraahdo ee gudaha magaalada ka baxa muujiye maxoo kala cunaa geelu iyo galey geleedaad u karisaan ma markii kugu horeysad galey u karisaan ba waan gartay ma jirtaa caqabadaad ku qabtaan dadka magaalada oo kale Laas Caanood gudaheeda joogo oo kale geeli markaad halkan gudaha magaalada daajinaysaan oo kale haye waxa ku qabnaa hawl badan haye caruurihii iyo hawl kale badan haye maxaa ka mid ah waxa ka ximid ah toogta iyo wax waa geela waad ilaalisaan inaan la idinka xadin oo kale waan gartay saawe oran karaa geeli halkan markaad keentay wuu badbaaday waan gartay muddo intee leeg baad halkan ku hayseen waxaan ku haynay 2 bilood gudaha magaalada ku hayseen geelal badan baa jooga gudaha magaalada Laas Caanood oo daaq lagala soo raadiyay Axmed Faysal Cabdi waxa uu sheegay in geelu imika cuno dhir ka baxda gudaha magaalada Laas Caanood taasoo uusan horey u cuni jirin abaarta iyo gaajaduna ay ku idbaartay inuu geelu cuno wax kasta oo ka hor yimaada waxana uu intaasi ku daray inay ahayd markii ugu horeysay uu arko gudaha magaalada Laas Caanood ee uu soo galo abaarta ka hor ma cunin maanta buucuna inta abaartu dhacday waan gartay xilligii hore ma cuni jirin inta naqahay ma cuni jirin geel haye inta abaartu dhacday cuni jirin Sarmaayaad ka timid Sarmaayo aad bay u fog tahay ma markii ugu horeysay Laas Caanood timaada waan gartay waa hadda ay ugu horeysay in Laas Caanood timaado maxaa Laas Caanood geela kala soo raadiseen qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Laas Caanood ayaa sheegay inay dadka reer miyiga ah ee xoolahooda soo galinaya gudaha iyo hareeraha magaalada Laas Caanood ay wixii karaankooda caawiyaan magaalada Laas Caanood ku degan ee joogta ee ku dhalatay waxaan la yaabanay markii u horeysay aan arko geel magaalada dhexdeeda iyo guryaha reeraha dhexdooda aan ku arkay geel daaqaya magaalada wayaab igu noqotay geelana meesha geelan in badan ma ku arkay meesha waxa sabab u ah abaaraha jira dartood waa sabab u ah geelan inuu halkan la keeno xaafadana degantiin sidaad ii sheegtay geela halkan galey baa loogu kariyaa dhirtan ka soo hadhay ee ku taala xaafadaha gudahoodana uu daaqa sidee la yaab kugu noqotay markii kugu horeysay inaad aragto geel daaqaya gudaha magaalada geel waxaan ku arkay geel meelaha maaragtay xudaaq jiray aydaas miyada iyo hawdka iyo nugaasha xudaaq jiray waxay ugu noqotay meeshii dadku joogay maxaa magaalooyinka laga adeeganayay in maxaa geel la keenay oo daaq lagala soo raadiyay bayaab ugu noqotay daaq loo soo raadiyay waan gartay sidee u caawisan dadkan geela wato kale dadkiina dhalinyarada ee tusaalahan magaalada degan oo kale wallahi billahi siyaabo badan in badan waa ku taxadarnaa in geelashan ciyaalo caruuraha jira maxaa hayto yar shiida geelashan la yaab ku ciyaaraya la yaab la geelan maxaa hayto meesha ay ku arkeen ciyaalaha dalku xoolo badan ayaa la soo galiyay gudaha iyo hareeraha magaalada kuwaasoo Nacfi lagala soo raadshay waxaana deegaanadii miyiga ee xoolahaasi ku dhaqnaan jireen ka jirta xaalad abaareed oo aad u daran waxaana xaalufay gabi ahaanba dhulkii xooluhu daaqi jireen Faarax Maxamuud Dubad TV-ga goobjoog magaalada Laas Caanood